وعنا wanaagsan idilaantii madaawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan xilligan idin haynana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay dawladda federaalka oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab u dirtay magaalada Kismaayo iyo cabsi soo wajahday hogaamiyaha Jubbaland haddaba muxuu yahay qorshaha ciidankan oo dhawaan tababar loo soo xiray loogu diray Kismaayo militariga Soomaaliya oo jab culus kooxda shabaab ugu geystay gobolka Hiiraan iyo madaxweyne Xasan Sheikh oo amaan ugu qabeeyay geesiyaasha ciidanka xoogga ee dagaalka adag kula jira kooxaha argagixisada ah wararka kale waxa kamid ah Villa Soomaaliya oo mowqif adag ka qaadatay in Mareykanku uu aqoonsado Somaliland iyo safiir daahir Carab oo fariin adag u diray madaxweyne Trump iyo shirkii golaha wasiirada ee maanta oo si weyn loogu taageeray howlgalka ciidanka Puntland ay ku bacsanayaan kooxda Daesh iyo Puntland oo kaliya ku qancaysa in uu dagaalkaasi ka hadlo madaxweyne Xasan Sheikh qodobadaasi ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan daawade muuqaalka like saar sidoo kale si share garay la sii wadaag saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin aynu ku bilaabano wararkeena ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ayaa lagu soo waramayaa in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay saacadihii la soo dhaafay u dirtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland iyadoo arintaanina ay baqdin xoog leh ku abuurtay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo dagaal adag kula jira dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dafacadii 11aad oo kamid ah ciidanka kumaandooska danab isla markaana ka qalin jabiyay tababar ay ku qaateen dugsiga tababarada ee Allah u naxariistay Xasan Tuure ayaa waxa ay ka dageen garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ee magaalada Kismaayo iyadoo halkaasina ay ku soo dhaweeyeen saraakiisha ururka 162 oo ugu horeeyo taliyaha ururka Cariif Hire Salaad ciidankan ayaana waxa ay ka howlgali doonaan halkaas iyadoo ay qayb ka noqon doonaan dagaalada lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee halkaasi ku dhoomalaysanaya ciidankan oo dhawaan uu tababar loo soo xiray isla markaana tababarka uu soo xiray ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Saale Axmed Jaamac iyo taliyaha militariga Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage ayaa waxa la filayaa in door weyn ay ka qaadan doonaan dagaalada lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee deegaanada Jubbooyinka walow halkaas Axmed Madoobe uu fadhiyo oo uusan doonaynin in uu toos ula dagaalamo amaba in markaasi la daadajiyo dagaalada kooxdaasi laakiin se warar aanu helayno ayaa waxay sheegayaan in Axmed Madoobe uu cabsi xoog leh ka muujiyay ciidamadan walow uusan ishoristaag ku samayn karin oo haddii arintaasi uu isku dayo xaaladda ay uga sii darayso isla markaana gabi ahaanba markaa uu soo afjarmayo kiiskiisa Axmed Madoobe ayaana ciidamadaas markaa isku dayin in uu ku sameeyo wax faragelin ah maadaama ciidamada kumaandooska danab ay yihiin ciidamo uu si toos u maamulo Mareykanka isla markaana dhaqaalaha iyo wax waliba oo ku baxaya Mareykanka uu markaasi bixiyo si kastaba ha ahaatee xaalad adag ayaa ka jirtay Jubbaland maadaama khilaaf uu kala dhaxeeyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya khilaafkaas oo ilaa iyo hadda aanan wax xal ah markaasi loo helin dhinaca kale militariga Soomaaliya ayaa jab xoog leh waxa ay kooxaha argagixisada ah ee shabaab ugu geysteen gobolka Hiiraan iyadoo saacadihii la soo dhaafay wararka laga helayo gobolka Hiiraan ay tilmaamayaan in ciidamada militariga Soomaaliya oo ay ka garab dagaalamayaan kuwa dadka deegaanka ay fuliyeen dagaallo iyo weerarro culus oo ay ku qaadeen deegaano dhaca webiga Shabeelle jiinkiisa ee dhinaca gobolka Hiiraan taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guuto Sahal Cabdullaahi Cumar oo warbaahinta dawladda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in jab culus lagu gaarsiiyay al-shabaab dagaaladii ugu dambeeyay ee ciidamada xoogga dalka ay fuliyeen taliye Sahal ayaa daboolka ka qaaday in la xoreeyay dhul ballaaran isla markaana dhimasho dhaawac la gaarsiiyay kooxaha argagixisada ah ee shabaab waxa uu yiri runtii cadawga waxa la gaarsiiyay dhibaato badan dhul weyn ayaa laga saaray oo laga qabtay dhibaato nafeed iyo mid awoodeedna waa la gaarsiiyay ayuu hadalkiisa sii raaciyay waxa kale uu yiri howlgalkan waa mid israacsan oo ujeed ku yahay in qawaarijta looga tirtiro dalka wuxuuna ka soconayaa buu yiri gobolada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellaha Dhexe militariga Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxay ahaayeen kuwa markaa ku tallaabsanayay guulo wax ku oola iyadoo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuudna uu amaan ugu qabeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu ku amaanay nafhurnimada ay sameynayaan iyo sida ay u doonayaan in ay difaacdaan dadkooda dalkooda iyo diintooda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayay suurtagal noqon kartaa in uu tago furimaha dagaalka si uu dhiirigeliyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed walow haatan ay madaxweynaha ku furan yihiin arrimo badan oo xaalado siyaasadeed ah iyo in lagu haysto
in uu dalka ka hirgeliyo doorasho markaa qof iyo cod ah oo ay si weyn u diidan yihiin siyaasiyiinta markaa mucaaradka ah. waa hagaag wararkeena kale haddii aanu sii ambaqaadno, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay si adag uga hortagaysaa qorshe la doonayo in Mareykanku uu ku aqoonsado Somaliland, arrintaas oo dhibaato ku ah dowladda Soomaaliya, waxaana ay dowladdu hadda wadaa dadaaladii ugu dambeeyay. danjiraha ama safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka Daahir Carab waxa uu ka hadlay arrintan aadka u haysata ee internetka, waxaana uu tilmaamay in aanay muuqan oo aysan jirin qorshe Mareykanku ku aqoonsanayo Somaliland. Mr. Carab waxa uu tilmaamay in ay markaasi kireysteen shirkad Mareykan ah oo uu tilmaamay in ay ka caawin doonto xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya. maruu arrintan ka hadlayay waxa uu yidhi ma aragno qorshe Mareykanku ku aqoonsan karo gobol ka mid ah Soomaaliya sida Somaliland. waxaan shaqaalaysiinay shirkad naga caawisa sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo Soomaaliya. go'aanka ay dowladda Mareykanka gaartay waan ixtiraamaynaa, balse waxaan codsanaynaa in kaalmada Soomaaliya la siinayo in aan la soo marsin cid kale, balse si toos ah noloo siiyo, ayuu dhinaca kale yidhi Daahir Carab oo ka hadlayay taageerada iyo dhaqaalaha dowladda Mareykanka ay bixiso ee Soomaaliya ay siiso, balse ay dad kale u soo marsiiso. Daahir Carab waxa uu sheegay in uu ka codsanayo dowladda Mareykanka in ay si dhow ula shaqayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, isla markaana aysan hadda jirin baqdin ku aadan in markaasi dhaqaalahana laga jarto Somalilandna markaa la aqoonsado. dowladda arrintaasi walaac badan ayay ku haysaa, laakiin hadda waxaa muuqata in kalsooni badan ay haysato. ugu dambeyntiina, shirkii golaha wasiirada ee maanta ayaa waxaa aad iyo aad loogu taageeray howlgalka Puntland ee ka dhanka ah kooxaha argixisada ah ee Daesh. shirka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo shir gudoominaya Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa lagu bogaadiyay guulaha ay gaarayaan ciidamada geesiyaasha ah ee difaacaya Puntland kana xoreynaya halkaas kooxaha ku soo duulay ee Daesh. Ra'iisul Wasaaraha ayaa faray dhammaanba hay'adaha wax waliba oo markaasi doorkooda ah in ay uga qayb qaataan dagaalkaas lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee Daesh. Puntland ayaa tabasho badan ka muujinaysay dhinaca dowladda federaalka oo ay ku eedeysay in aysan doorkeeda ka qaadan, laakiin waxaa hadda muuqanaysa in Puntland kaliya ay ku qancayso in dagaalka uu ka hadlo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo weli isagu si toos ah aanan uga hadlin amaba aanan ugu hambaliyeynin Puntland dagaalkaasi ay ku jirto. Puntland waxa ay ku jirtaa dagaal adag iyadoo halkaa ku weynaysa saraakiil firfircoon oo muhiim ahaa. guud ahaan wararkeeni intaas ay ku dhan yihiin, intaanu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.